السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وارودي سلام يا دمانتي ببشري كحران. سود هذا ما أنت وحردين هيا وحان يابي وحان لو يابي باردين هيا دل طرو وحان يابي برجي هلا وحرارك تشري إيران عبارة سنة كبر بيسوي بحجرتي إن ويكسو يرجورينو dhowrkii biloodba mar adigu bishii mar hadda waxay marayaan wiigii 5 ilaa 6 inay soo baxdo ama 4 ama 3 soo baxdo wayna sii socdaanoo ma arko meel ay ku soo noqonayaan maxaa khaldan markaa Soomaalida maxaa ka khaldamay Soomaalidu weligeed way isdulmaysay weligeed way istilaysay weligeed rag iyo naag way naagaha iyo ragga Soomaaliyeed hadii loo garnoqo kuwa maanta guryaha leh aamusan hadii loo garnoqo waxay wax ka badan bay soo wada mareen laakiin waa la xishooda waa la iska aamusaa hadii ilaahay ba ka furfuray ninkii oo ka tagay waxa weeye waa alxamdulillaah rabbil caalamiin laakiin inaynu sidan u dhaqanno oo maanta aynu ku soo badanno meedhihii dumar cabanaya anigu markaan fikiray waxaan isiri waxaan waa dhiirigelin waa lagu soo dhiirigelinayaa inaad waxaan ka hadasho caruurta yaryar dhalinyarada yar soo kacaysa ee doonaysa inay isguursato ee doonaysa inay dhaqanto in looga dhigayo la nacsiinayo guurkii in Soomaalida faraha badan dhalka badan dhasha badan ee dhasha laga yareeyo inay hadda hawlaha dhal teenage-ka xukuumadda dowladda labaan dhalaya mid ma barababa hal mid haddaan dhalo NF because waxa weeye dadkeeni dhaqankeeni badnayd ayaa loo damidigleeyahay in meel xun layna ka soo hadhaa la rabaa in layna baabiyo la doonay tarankeena la baabiyo in dhaqankeena la baabiyo waayo waxaanu nahay Soomaali xalay inaan baan leefkooda hadlayno waxa uu fikirka ahayd buu qabay isagu anna waan la qabaa runtii fikirka ah wuxuu qabay Soomaalida waxa la eegayaa intay dawladnimada ku noolaan karto berigii hore waxa la islahaa way iska baaba'ayaan way baabi'i waayeen 33 sano bilaa dawladda ahaayeen deedna inay bulaasho kibirto oo sii badato oo sii baxdo oo wax walba ay bartaan ay wax walba ku bataan baa la baaray way baa leeyahay Soomaalidu ay u baabi'i way dawladnimada ila dawlad ma haysatee way bay u nooshahay oo wax u baranaysaa oo sidan u tahay laba wax baa marka la ogaaday xoolaha nool iyo dumarka inay tahay waxa nooleeyay Soomaalida nooleeyay dumarku laxoodub baastadub basaldub kan kale samee wax samee u dagaalan waxa dagaalamaysa 90% ee nolosha la xarbiyaysa waa hooyo kow caruurta korinaysa iyo xoolaha noolo aynu iibsano oo cunno aynu ku noolahay oo aynu dad xoolo leenahay waad ogtiin hadda xoolaheeni waa run way yaraadeen xoolaheeni sun baa lagu soo daadinaya wadanka kaw baa laga abaar baa lagu soo abaartaas wax allaale wax dadka xoolaha leynaya la garan maayo cudur baa lagu soo saydinaya cudurkaas meel lagu tuuraya hay'adaha inoo shaqeynaya hay'ad baynu aaminay hay'adihii maxay ka shaqeynayaan marka inay ku baabiyaan dabeedna xoolaha hadda dadkii xoolo yar bay sii haystaan 2016kii hooyaday gurigeeda ilaa ku naxariiso guriga walaalkay aniga uu joogo 450 neef oo ariya joogay 60 geelina waa joogeen xooluhu saas darafka isugu hayeen markaan dhulka yaga tago saas baydu darafka isugu hayeen hal mar ba abaar loo keenay 2006 waati abaar dhacday abaartii maxaa ku hoos jiray cudur xoolaha leynayaan la garanaynin ariga iska waqtiga maxaa keenay ama ceel ha loogu shubo ama daaqsin ha loogu daadiyo waa cudur waa waxa wada liidin soo raacay oo xoolaha ah waad ogeyd xoolaheena 10 ba ka soo haray 10 ba salfeefaray kuwii baa hadda fufaya abaar baa iska dhacaysa cudurra hadda jira geel baa leeyahay cudurra jira geel wasuu joogo iska dhimanaya cudur baa lagu soo tuuraya marka aad xoogaa soo bulaashaba xagga xoolaha ah inuu hadda xoolii way naga yaraadeen xoolii badnaa ma haysano dumarkii hadeerto waa kanoo dhashii diiday guurkii diiday habli yar xakortan dawlad guursan maayo maxaa ku falaya anigu nolosheeda raadsanaya guurba ma rabaan ba habli tii guursan xakortan labaan dhalaya mid baan dhalaya marka tarankii baa lagala dagaalamaya sidaasaad ku noqonaysaa down dad baaba'ay ad qurun baabada ku noqonaysaa marka anigu waxaan lahaa raggeeniina waa tan iimaanka laga qaaday oo waa tan iyagii baa la isku fooriyay oo waa tan iimaankii waxa laga qaaday siyaasad laakiin ma oga hoosta way og yihiin laakiin tan waana kala hayn
ma fahanteen markaa soomaaliyay dhibaato badan baa inagu soo socoto soomaalida kusoo fool leh dhawaanaha soo socda 30 sane soo socda waxaa laga yaabaa waddankan inaan la yeelanba maadaama 30 sano dadkii horena dhammaanayaan generation maanta 30 jirka inay 60 jir noqonayaan iyaguna ay dhammaanayaan kuwana kuwa kasii daran oo kasii xun ay soo bixi doonaan inaynu sidii dad aan jirinba u noolaano guurkii yaraado wixiiba yaraadaan baa soo socota marka anigu waxaan lahaa soomaaliyay intaynu isu haysano hebel iyo hebel bal horta soomaalinimadeennii iyo dadkeennii iyo waxyaalahan dhibaatooyinka inagu haya aynu iska dayno waxaad arkaysaa dowladda la isku haystaa dowladda hebel buu garab ka saaray maraykan buu garab ka saaray ka kaluu garab ka saaray markaasuu garab ka saaray war inagu aan dowladna garab saaran baynu noolaan jirin xoolaheenna qura ku noolaan jirin dadkan waxaa rogay siyaasi ayaa rogay horta waxaan idin leeyahay qolo waliba halka aad joogto dumarka aad u taliso ka tali hablaha iyo inamada dhalinyarada ee maanta Soomaaliya jooga ama Somaliland jooga ama Soomaaliya jooga Afrikaba jooga war hal isu guuriyo reeraha la sameeyo oo nin walba inta reerka uu garanayo gabadha ka doonto gabadhuna reerka ay garanayso inamada jooga iyo hablooda isu guuriyaan carruurtana hal isku dhaqo hal isku ilaaliyo wallahi haddii kala dabargo bayna ku soo socda inta qurbaa joogtana ajaanib oo tashanaya inta Afrika joogtana sida marka ay ila hamad bay leeyihiin marka ay la guursan waayo xagee taga suuqa galayaan yes inamadana suuqa galayaan habna suuqa galayaan habeen maalin walba xaka hadashan garac baa banaanka la soo dhigay garac baa halka la soo dhigay garacin ma jiri jirin boqolkii sano hal sano ilma ka dhalan jiray ina yaro ama geel dabadii lagu kufsado loolan jeehay baa la kufsaday uur bay yeelatay maxaa keeni jiray hablu baahi may qabeen rag bay heli jireen waa la guursan jiray hablihii baahi baa 30 jir bay guriga ku joogta ma wayna 30 jir joogtay ma qali jirin ma 30 jir bayna warigaan ku maqalay no waryaadaheen anigu waxaan leeyahay dhaqan guur bay nagu soo socda markaan eegay waxa la yiri ninka ugu dheerba dadka ugu ayaan daran waxaa lala arkaynba isaguna muuqdee aheeya maskaxda laga abaaroobay wallahi maskaxdaynu ka abaarownay oo Soomaaliya inta miyir qabta ee wanaagii Soomaalinimo ku dambeeya cad bay inoogu yarta waxaynu ka fikiraynaa anigu kama fikiro waxa halka loo yiri waxa kan kala qabiilka sida dagaalka buubo kama fikiro laakiin waxaan maalin walba maskaxda daaliya oo aan ka fikira Soomaalida halkay ku dambeyn doonto dadkani halkay ku dambeyn doonaan baan ka fikiraa war dadkan waxay ku dambeyn doonaan tolo marka generation caynka yahay because qofku markuu beeyad ku soo koray dadka aniga ilaa eego dhami way ila fahmi karaan waayo markaanu soo koreynay noloshaan ku soo koraan garanaya tii dhexaan garanaya tii kalaan garanaya tan hadda taaganahay iyo dhalinyarada hadda joogta halkay marayaan baan kala garanaya tan marka neego dhalinyarada halkan marayay casri baa la joogaa wax wale oo cirkaasay mareen marka waxaan dareemayaa anigu in uu inagu soo socdo dhaqan guur waliba dadka Afrika jooga Soomaaliya Somaliland dadka jooga ee degan waxa ku soo socda dhaqan guur aad u xun aad iyo aad u xun because tan qurbahana waxay moodayaan wax weyn toodiina way ka tageen dawacadii teedina ka tagtay tii nabigana gaari wada cali sallallahu bay noqono tii baynu ku soconaa ee dadka Afrika jooga ha loo taliyo wacyigelin ha loo sameeyo lagu dirin war wacyigelin ha la sameeyo oo laba arrimood baa wacyigelin laga sameeyo dulmiga iyo dhibaatada iyo qabyaaladda iyo saqajaanimada ka jirta dawladaha aynu ku noolahay ina haysta Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo dadkan dhaqan guurku ku dhacayo ee ba'aya ee hoogaya ee silcaya ee meel ay u shacabka ah ee meel ay u tashadaan iyo meel ay ka tashadaan toona aan garanayn dhalinyarada bilaa guurka ah hablahan bilaa guurka ah dunida soo yaraanaysa halaga taliyaan wallah aadna weydii salaamaya yaa وعوده يسكع عوده يدوس يدو ورد يدوس كسر في التاموت يا